Madaxweynaha Jamhuriyadda Somaliland mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa goor habeena kormeer kedis ku tegay Cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa waxaana madaxweynaha kormeerkiisan uu ku booqday bukaanjiifka Cusbitaalka oo uu ku booqday wadarka madaxweynaha ayaa qof u dul istaagay bukaanada isagoo ka xal wareystay una sheegay in ujeedadiisu ay tahay inuu ogaado sida loogu shaqeynayo bukaanjiifka waxaana uu halkaasi uga duceeyay dhammaanba dadka xanuunsanaya oo Ilaahay uga baryay madaxweynuhu inuu xanuunka ka dulqaado caafimaad taamana ugu bedelo dhanka kale waxa uu madaxweynuhu kormeerkiisa uu ku tagay qaybta ay wax ku bartaan ardayda jaamacadda Hargeysa ka barata caafimaadka waxaana uu halkaasi kula kulmay macallimiin ajnabi ah kuwaas oo ka soo jeeda wadanka Turkiga tababar dhanka qalinka ana siiya ardayda jaamacadda Hargeysa ka barata caafimaadka madaxweynaha Jamhuriyadda Somaliland mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa dhaqaatiirtaasi uga mahad celiyay dadaalkooda iyo tacabka ay ardayda ay galiyaan sidoo kalena waxa uu ardayda uu ku dardaaray inay wax badan ay ka faa'iideystaan khabiirada caafimaad ee wax u dhigaya waqtigoodana gelinaya dalka waxa kormeerka ku weelinaya madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Bihi Cabdi taliyaha ciidanka booliska sareeyo guud Maxamed Aadan Saqadi dabagale gudoomiye ku-xigeenka labaad xisbiga talada dalka ee kulmiye mudane Ahmed-Zaki gudoomiyaha hay'adda barakacayaasha iyo qaxoontiga Cabdikariin Axmed Xinif ergeyga gaarka ee wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya Marwe Aadan Ismaaciil iyo gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa Maxamuud Yuusuf Muuse